Isbahaysiga mucaaradka Kenya ee Azimio ayaa qorsheynaya mudaharaadyo maalmo isxiga oo ay ka dhigayaan guud ahaan Kenya. Maalmaha Arbacada, Khamiista iyo Jimcaha ayay qorsheynayaan isku soo baxyada ay uga soo horjeedaan nidaamka canshuurta ee dhowaan dowladdu ay soo bandhigtay. Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa dhankiisa sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan kuwa soo abaabulaya isku soo baxyada, iyada oo dhowaan mudaharaadyadii dhacay ay ka dhasheen khasaaro naf iyo maal isugu jirta. Xaafadda Islii ayaa ka mid ahayd meelaha saameynta xooggan mudaharaadyadii asbuucyadii aynu soo dhaafnay Kenya ka dhacay ay saameynta xooggan ay ku yeelatay. Guud ahaan Kenya ayaa dhowaanahanba wajahaysay isku soo baxyadaasi oo dadku maalmaha ay jiraan qaarkood aanay shaqooyinka tegaynin. Hase haatee dowladda ayaa haatan sheegtay inaanay mar kale usii dulqaadan doonin khasaaro iyo waxyeelo kasii dhalata rabshadaha ka dhasha mudaharaadyadaasi.